xildhibaano ku tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda Koonfur Galbeed mudane Ilyas Cali Nuur Cali iyo magaalada Baydhabo ku bilaabay abaabul ciidan haanase oo la fadaya inay xoreeyaan deegaanada farakutiriska ee kooxda haraadiga Al-Shabaab iyo gacanta ka hayaan onka horeen waliba goobta ku hadalay taliyaha ciidanka booliiska gobolka Bay gaashaan la sare Aamin Madaruur soona sheegay in shacabka diyaar garoobeen sidii oo isku dul qaadan lahaayeen dhibaatooyinka kooxda nabadgelyada diidka ee Al-Shabaab dadka shacabka diyaaru lan wiilay ka meelo kase dhulka kasemaha markay noofay intii uu ishoreeynan ciidanka booliiska hadii uu inin weyn ku baahanya dadkan hormuudyo naganaan hormuudka Baydhabo naganaan hormuudka dagaalkana naganaan la fadee oo banaan la dagaalannan waylan ku baahanya dagaalannan nimiyaw mayla raayis shabaabkan isku reebnan shabaab umatan oo la leey naftaan oo la leey ehelkan oo la leey aaday aakay waalidkan oo la leey waynan ku baahanya madun war umataas ku buridi odiga warjay deegasin weeray gol dinigo nijaas ku ee malku tukidu koreeri waynan ku baahanya nimiyaw diyaar garownan hamin wel mayla raayis arigada roog mukuudil roog inta ku banaan mark dadka shacabka diyaaru dadka baadiisii raan qobsadayaan mayleyn anta la mid horaan lama malkiin shan heblawsi anta kooyan roogan leey dinigan walaay awlaadiyo yo dhan haqaan la kaas farowjeen kirin yo dhan way bariwana mayla raayisa tawarawi mintaani idaayingi labaata jaraw saydheelaw iyo jiirtaa ka buuhan hoomnin jarang 60 kilometer manin jarang hawna tan tuku dhaagnan meelaayis meeliyo askargaana ngariwag marka waynin ku baanya nimeew digaal diyaar garownin umatan dhimasho ogolaanen Ilyas Cali Nuur Cali wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda Koonfur Galbeed oo sina la hadalay ciidanka iyo dhinisho ku boori shacabka iyo ciidanka inay isku kaaladan sifaynta kooxda haraadiga ee Al-Shabaab maybu waa hadalka masiinka dheerayo wali la sheegay la hortay la sheegay geekana surnayteen anina maybu waa kelimad oo dhiirigelin leh kasii darsade aan ku badanayna lama daqiiqo 3 daqiiqo dalkii dadka horlaantii wal difaacay hadana difaac iyo lama jibaar la fadahay intaas leeyo micnaasha ma wal may difaacaan horlaantii horeyn wala difaacasan hadana difaac ilaa si hoojiye nimankii khawaarijta haayeen horna isku fogeeye wal haga qobade wal ku takhaluso leeyahay deegaanadan xuraysadaan leeyahay ulajeedadii hadafka lankas marka hadii geeka arabka ka dagaalanta galanta ka dagaalanta maalka ka dagaalanta lankas geeka taasa teeganta marka lanki maalka dagaalamo kor lanki arabshay ka dagaalamo kor jihaadka markii la sheego saaso jihaadka laakiin sheego may bolan koona maalshay ka dagaalame lankoona arabshay ka dagaalame lankoona may buu naftisa ka dagaalame dadna haana iska darsadayaan maalshay dhiibe arabshay ka dagaalame naftisna ka sii dare marka eedan ma hasantiin anagu hadalka siinka dheerayaana kacdoonka ku soo aragaytaan guud ahaan Soomaali uneen isku shabeeynan waliga gobol korna gobonen wali dilo kor hal diloy wali has dhiibeen may buu deegaanadan xuraysanooy fursadda hadda teegantaal ku faa'iideysaday way geedi may leer jinka bootin ma halulushima leh hadda may la faday geeka uni roogni isin roogdan noolin sidii arare dad meel in isku saartiya geeka may la faday shabaab meel in isku saaro la faday dhiiga korkinga ka jara may buu antan la dulqaado kor kacdoonkan socda oo tareenkan socda uniinu ku hirna ma fadaan ayna ernay wala siin gurmade dadkan dhidhiifana wala isku reebo waayano koralinku kooyayna ernay sida dadka an kahan uniina an kanoy xuduudan ilaalsanoy deegaanadan ilaalsanoy anna may ba ka dardaaramay ciidamadii singo may geek ka dardaaramay fadhagantiinu ku kana dadkaana buraarijiina dhiirigelina ay hay inta ku kooy may sheegahay may ka hadalahay may leey nanis ern taasa ka dardaarameen jiifkalku ku hoy waliha soo aragaytan daadka soo bani korkooy deegaanadii daadkaas ka fadheedan wallahi bari berlin ku kiyoon male tabarna min helasan antay maak farunyoon ka dhagaasan saasay ka baabaan anti taas niindeerna marka xuduudo
meeli koonfur galbeed ka egta ilaa hadda inta lagu dhaqaaqa hal xuraysadoy ana taasa ka dardaarame ciidamada eedan ma santin naftinga biyaytan waqtiga biyaytan geeka ay la fiirinay ay hay qabiilkee inta ku kooy inta injeedi ulujeedis ma ati hadaf jeey ma ati may damacsan walaagas dhan meel hal isku dhikoy geeka may bo midnimo koonfur galbeed korshe wala deeri kaha oo midooba koonfur galbeeday kaha oo midooba General Mahad Abdurrahman iyo General Ciiro oo kuwada tirsan baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya yeesa adag an la dardaarmi shacabka iyo ciidanka koonfur galbeed iyo aan sheegan in iyo diyaar garooban dagaal ku dhan ee kooxda maleeshiyada ee al-shabaab maxaa loo baahan yahay nimayo dadkan anagoo kala waayaan iska dhicin qoriyaan haystaan aan iska dhicin ceelashanadii degan shacabkii ay leenayaan jidadkii ay go'doomiyeen ya waxaa la leeyahay ummaddan hala dhameeyo jidadkooda hala gooyo ummadda inteeda kale wadooyinkeeda waa furan yihiin annaga lay go'doone waajid male qansax dheera male diin soor ma tegi kartid diyaaradoo la fuulay diyaaraddiina waxay rabtaa $100 qofki 5,000 diyaaradda dil $5,000 waay kontonka bay qaadaa minta $5,000 waay in la dhintaa la rabaa dhimashaa diyaar loo yahay nimayahow maqaayadii halkaasay timid inta waa nagala wareegtay ilmahay dhigteen manaas iyo ilaa ilo meeshii biyo lahayd oo dhan waa degeen dhulkan dhan waa soo oodeen way keensadeen carruurtii ay la qaxayaan dadka baadiyaha markaan waraysanay qofka hadduu ku agmaray hataa kulama hadlaaya layidhi waa wareersan soo inaan wareerka ku galna maa intuusan lees bixin in la galo ma aho hadduu nagu lees baxo waa ku kaasa waa calaacalayaan waxay leeyihiin dhaqankii hore waxbaan ka bedelaynaa shacabkii way la hadlaayaan waxay leeyihiin dhaqankii hore aan ku maamulayna waxbaan ka bedelaynaa waa laga bedelayaa tahdiid ma jiro wax leen kama qaadayo xoolaha waa ku kaasa ogow haddana intay u wareegeen micni waa afuufu hayaan maxaa loo baahan yahay dagaal u diyaar garooba inaan waxaan iska xoreynaan u diyaar garown waxa waay aan ismaqalno booliiska meelu fadhina waa dagaalama ma jirto booliiska asiga dalka xoogga dalka Soomaaliyeed ka ah dagaal la aadi isdiyaari u diyaar garooba naqshadina keena naqshadii soo dajisaan keena qaabkii loo dagaalami lahaa ilaa adinka hadda nimankan gacanta la difaacoodii ahay habkan u dagaalami lahayna keena diyaar garoobana dhaqdhaqaaqa shacab iyo ciidan iyo dawladba waa kacayna baarlamaankiina waaba yimid oo asna waa gala dagaalku gala wax haraay ma jiraan markaan is xoreynaan soo noqonayna wabillahi tawfiiq ani arday un kacdoonkaas ku qayb qaadana waana meel raay nimankan firxadka oo gobolada dhexe hadda ku jabi oo una dhinikan hanbahi ani arday ku horsan oo arday awlaadiyo afka ka wadada geeka dheebeeyin inii uu ku horseena nimankan arday isku gobana ya arday waajibni laakiin ma dhii doonto insha Allah shacabkii keenna han la isticmaalay maadaama yooyin hadda shacabkii kale oo gobolada kale ka hay aragohan yo shacabkii keen aragohan marka may qaybtanka weyn may ku faday in arday qaadadan may la raay shacabka koonfur galbeed in arday qaadadan ani hatta lanki goran wadana ani era may la raay afaranta ka dhuumaday telefoon u sadira kulay taas may ku hadala doona may la raay bulshada yal ku hadala doon arintaasi arin eed muhiim ah oo sharafteen karaamaden sumcaden arday khusaytu isignaftatin nololin intu ku faylaadas hoob shabaab dhulkan lagu xuray waayo exercise halas tuleed ka dhalatay ambahaas isku lugaas isku seedaas dukaanko yar ku furudaas yaani wayba kin furun meel raay option banaha kin bahe oo aad arday ka noolada kor nololaan ka gaaji korto awlaada arday iskoolka jeesado korto hadda boy rogan laakiin meel faday dadki free nagadan oo arday option yaani in aad deega korto magaalada cornershe oo aad option laan adoo laafiyos station ha baa korto mashaqada aan kooy korto ogna hadda duruufo isku jara marka may liinbaahnya in arday uu kacdoonkan ku qeyb qaadan wala bersho gunnimo way
gunnimana inay un ka jarna ma dooyinkan ka dambeeyay guud ahaan dalka Soomaaliya waliba ku dareeray kacdoon la ka baacsado kooxda nabaddiin-nololeedka ee Al-Shabaab Maxamed Muumin warbaahinta dawladda Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo.